السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عنا ونكسن داوديال أصحابتي قالقة ميل walba joogtaan ay si walba muuqaalka idiin soo gaarayo ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya ee da'dooda ka hooseysa 17 sano jirada ayaa wada diyaar garowga ugu dambeeyay kulanka labaad ay la dheelayaan xulka wadanka DR Congo maadaama ay ku jiraan groupka A. ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya ayaa isku diyaarinaya kulanka habeen dambe ay la ciyaarayaan dalka Congo waana kulanka labaad ee koobka dhalinyarada qaramada qaaradda Afrika ee 17 sano jirada. ciyaartoyda ayaa muujinaya niyad wanaag maadaama ay soo bandhigeen kulankii hore ee furitaanka koobka ciyaar lagu riyaaqay taasoo ay si weyn u aaminsan yihiin inay guul ka keeni karaan ciyaarta ay la leeyihiin ciyaartoyda xulka qaranka wadanka Congo kuwaasoo ayagana guuldaro kala soo kulmay wadanka Senegal. abaabulka mooshin ka dhana ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka socda magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya. magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa muddooyinkii dambe ka socday abaabulka mooshinka si weyn loogu soo horjeedo xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse ayadoo xildhibaanada hormuud ku ah qorshahan ay isku dayayaan inay taageero u helaan mooshinkooda. xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse ayaa muddooyinkii dambe wajahaysay dhaliilo xoogan oo la xiriira maamulkeeda iyo shaqada loo igmaday. xildhibaanada wada mooshinkaasi ayaa si weyn loogu eedeynayaa inay yihiin kuwa iska dhex waayay golaha wasiirada sidaas daraadeedna ay u mucaaradayaan xukuumadda Soomaaliya. qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa aaminsan in xilligan lagu degdegay mooshinkan laga wado xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaana si weyn loogu eedeynaya xildhibaanada wada mooshinkaasi inay yihiin kuwa caqabad ku noqonaya dagaalka lagula jiro kooxda nabadiidka Al-Shabaab. maamulka gobolka Banaadir ayaa soo saaray awaamir culus taasoo saameyn ku yeelan doonto isbeddelka xilliga habeenkii magaalada caasimadda ee Muqdisho. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa sheegay in la mamnuucay isticmaalka iyo ka ganacsiga shiishada, taabuuga, qamriga, calaqa iyo xashiishka waxaana la amray in xilliga habeenkii wixii ka dambeeya 12 habeenimo aysan furnaan karin goobaha lagu caweeyo ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. amarkan ayuu duqa Muqdisho ka sheegay kulan oo xarunta aqalka dowladda hoose Xamar uu kula qaatay ganacsiyada lahayd xarumihii dhawaan uu xiray maamulka gobolka Banaadir. dhawaan ayay ahayd markii maamulka gobolka Banaadir uu burburiyay goobaha xilliga dambe ee lagu caweeyay ee ku yaalo magaalada Muqdisho taasi oo si weyn ugu horyimaadeen qaar ka mid ah ganacsiyada lahaa goobahaasi. booliiska dalka Djibouti ayaa soo xiray in ka badan 3,000 oo qof kadib howlgal ay sameeyeen oo ka dhan ah tahriibka. dowladda Djibouti oo ku dhawaaqday howlgal ka dhan ah tahriibka ayaa sheegtay in booliiska ay xireen 3,000 oo qof oo la musaafurin doono. wasiirka arrimaha gudaha Nuux Xasan ayaa sheegay in dalkan ku yaala geeska Afrika ay buuxiyeen qulqulka dadka ka imaanaya dalalka dariska. wasiir Nuux ayaa sheegay in Djibouti ay go'aansatay inay qaado talaabo lagu ilaalinayo badqabka iyo nabadgelyada shacabkeeda iyo inay xakamayso qulqulka muhaajiriinta dalka imaanaya. Djibouti oo dadkeeda lagu qiyaaso 1 milyan ayaa ku taala marin tahriib oo ay maraan muhaajiriinta ka soo cararaya dagaalada iyo musiibooyinka isbeddelka cimilada ee raadinaya nolol wanaagsan. telefishinka dowladda Djibouti ayaa sheegay in qiyaas 3,000 oo qof lagu xiray howlgalka loona qaadayo xarumo musaafurin sida baabuur xamuul ah dib loogu celiyo dalalkooda. lama shaacin dalalka dadkan ay ka soo jeedaan. wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in dadka sharci darrada ku jooga gudaha wadanka Djibouti ay musaafurin doonaan haddii ay wadanka ka bixi waayaan muddo 30 maalmood gudahooda. haddaan eegno dagaalka ka socdo dalka Suudaan, xabad joojintii labaad ayaa fashilantay kadib markii labada dhinac ay diideen taasi oo sababtay inuu sii socdo dagaalka isla markaana qaxa uu sii bato. duqeymo xagga cirka ah ayaa lagu qaraacay magaalada caasimadda u ah dalka Suudaan ee Khartoum inkastoo ay jirtay xabad joojin loogu ogolaanayay dadka rayidka inay baxsadaan. ciidanka militariga ayaa sheegay inay weerar ku qaadeen magaalada si ay u baabi'iyaan kooxaha ka soo horjeeda ee ciidamada degdega u howlgala ee RSF. dagaalka ayaa sii xoogeystay iyadoo dhinacyada dagaalamaya ay qolo walba sheeganayso inay doonayaan inay la wareegaan goobo kale cusub. in ka badan 500 oo dhimasho ayaa la soo sheegayaa iyadoo tirada dhabta ah ee dhaawacana la rumaysan yahay inay intaasi ka badan yihiin. malaayiin qof ayaa weli ku xayiran magaalada caasimadda ee Khartoum. dadaalo diblomaasiyadeed oo xoogan ayaa waxaa sameeyay wadamada dariska ah Mareykanka, Ingiriiska iyo qaramada midoobay. xabad joojintii xilligeedii ayaa la kordhiyay laakiin ma aysan ogolaan dhinacyada dagaalamaya. si kastaba haatee weli ma cadda talaabada ay qaadi doonaan
dalalka Sacuudiga iyo Mareykanka ee dhexdhexaadinayay sidii loo gaari lahaa heshiiska xabad joojinta. waad ku mahadsantihiin la socodka barnaamijyada warbixinada waxyaabaha xiisaha badan ee aan soo geliyo page-kayga Cabdullaahi Axmed Kulmiye.